Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan sameynayaa maasko jirka oo dhan ah ama wajiga ah. Maaskadani waxay si aad dadka uga caawinaysaa ama gabdhaha uga caawinaysaa gabar iyo wiilba maqaarka dhintay inay ka dejiso. Maxay tahay maaskadu? Waa misir ama digirtaas sonkor gaduudan iyo malab ekologiska ah iyo maxaan ku iraahdaa coconut ama qumbe. Haddii aadan haysanin qumbe ama waxaad isticmaali kartaa saliidaay. Waxaan kaloo ku darsan doonaa haddii Ilaahay idmo liin dhanaan. Marka waxoo idil waa inay noqdaan organic malabka. Markaas waxaad kaloo haddaad haysatay aad isticmaali kartaa caradan waa jirka oo dhan baa lagu nadiifiyaa, wajiga siiba lagu nadiifiyaa. Jirka marka intaan wajiga ka ahayn waxaan isticmaalayaa geedka. Waxaan marinayaa jirka meelaha hilibka oo marka qofku uu hilibku ka dago ama marka uu qofku hilib fuulo oo jirkiisa uu kala fido dildilaaco. Markaan marisid alaabtaan oo dhan oo isku shiiday waxaad marinaysaa geedkan ku masaajeynaysaa baafka inta tagtid haddii Ilaahay idmo. Marka waa inaadan isticmaalin gacmaha aadan ama faraha aadan wajiga ku marin. Geedka waa in isticmaashaa ama suuf. Alaabtan waxay wajiga ka dejisaa sida inii sheegayba maqaarka dhintay. Gabdhaheena inta ugu badan waxaan ka cabanaa ama aan ka calacalnaa maqaarka madowga ah oo wajiga fuula ama haaraha. Waxaan rajeynayaa inay ama aan wax badan tijaabiyay oo gabdho badan tijaabiyeen inay wajiga ka dejinayso haaraha. Haddaad isbuuci 2 jeer ama 3 jeer aad isticmaasho haddii Ilaahay idmo. Sonkorta indhaha ka ilaali. Indhaha uma fiicna sonkorta. Haddii aadan haysanin saliidan ama qumba aadan haysanin ood heli kartid dacarta ood ku dari kartaa insha Allah. Intaan markaan isku qaso wajigaan marinayaa anoo geedkaas isticmaalaya.